Assalaamu calaykum. Waxaan dooneynaa inaan halkan kusoo gudbino macluumaad ama xaqiiqooyin ku saabsan waddanka Bakistan. Kusoo dhawaada Bafai. Bakistan waa waddan ka dhashay Koonfurta Aasiya sanadku markuu ahaa 1947, markaas oo qayb ka mid ah Muslimiintu ay ka go'een Hinduugii aqlabiyadda ahaa ee British India, oo ka koobnaa waddamada maanta lagu kala magacaabo Bakistan, Bangladesh, iyo India, si ay dalkooda hooyo u maamushaan. Dooxada qadiimiga ah ee Indus, buuraha silsiladda ah ee isaga gudba waddamada kale ah Nepal, Shiinaha, Bhutan, iyo India, laguna magacaabo Himalayas. Marinka ganacsi ee Khyber Pass iyo Badda Carabta waa qaar ka mid ah kuwa ugu da'da weyn adduunka, uguna safarka badan taariikhda ee laga helo Bakistan. Magaca Bakistan waxaa la alifay 1933, waxaana alifay nin u ololeyn jiray Bakistan oo lagu magacaabo Chaudhry Rahmat Ali, oo dhul gaar ah u doonayay Muslimiinta Koonfurta Aasiya. Ereyga Bakistan waxa uu u taagan yahay xarfo laga soo qaatay gobollo kala duwan, sida ereyga ugu horreeya ee magaca Bakistan oo ah Ba ayaa laga soo qaatay gobolka Punjab. Isla ereygaasi Punjab ayaa laga keenay laba erey oo Persian ah, kalena ah Punja oo micnaheedu yahay shan iyo Ab oo micnaheedu yahay webi. Micnaha isugeynta labadaasi erey ayaa noqonaya dhulkii shanta webi. Ereyga xiga ee A ayaa laga soo qaatay Afghania, oo ah magacii hore ee loo aqoon jiray Khyber Pakhtunkhwa. Ereyga Ka ayaa laga soo qaatay Kashmir. Ereyga Sa ayaa laga soo qaatay Sindhi. Ereyga Tan ayaa laga soo qaatay Baluchistan. Xarfahaas laga soo qaatay gobollada ayaa laba erey loo sii kala qaadayaa, iyadoo ay kala noqonayaan Pak oo micnaheedu yahay nadiif, iyo Stan oo micnaheedu yahay dhul ama goob. Isugeynta labadaasi erey ayaa noqonaya magaca waddanka Bakistan, taasi oo micnaheedu ay noqonayso dhulkii nadiifka ahaa. Sidoo kale, dalkani Bakistan waxaa abaalmarinta Nobel Peace Prize ku guuleystay laba qof oo kala ah Cabdusalaam oo ahaa fiisigisyahan ayaa 1979 ku guuleystay abaalmarintan, isagoo ku muteystay aragtida electron-wave unification. Sidoo kale, Malala Yousafzai ayaa iyaduna ku guuleysatay 2014 iyadoo jirta da'da 14 sano, kuna muteysatay u ololeynta carruurta si ay u helaan waxbarasho. Sidaas ayayna ku noqotay qofkii ugu da'da yaraa caalamka ee ku guuleysta abaalmarintan. Bakistan waxa ay leedahay mid ka mid ah nidaamka waraabka isku xiran ee ugu weyn caalamka, taas oo in ka badan 93% biyaha loo isticmaalo beeraha. Waddanka Bakistan waxaa lagu farsameeyaa in ka badan 40% kubbadaha caalamka, halka aragtiyo kale qabaan 70%, waxaana lagu farsameeyaa magaalo ku taalla waqooyi bari ee dalka Bakistan, laguna magacaabo Sialkot. Qaar ka mid ah buuraha caalamka ugu dheer waxaa laga helaa waddanka Bakistan, sida buurta labaad ee caalamka ugu dheer. Buurtan ayaa leh dhowr magac oo kala ah Dabsangi ama Jogori. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa buurta Godwin Austen English ahaan, iyo Qojir Fengin oo Shiinas ahaan loo yaqaano, laakiin dadka badankood waxa ay u yaqaanaan si fudud buurta K2. Waxa ay gaaraysaa buurtani 8,611 mitir, oo u dhiganta 28,251 feet. Mashiinada lagala baxo lacagaha ee lagu magacaabo Automatic Teller Machine, loona soo gaabiyo ATM, midka ugu dheer caalamka, waxaa laga helaa waddanka Bakistan, gaar ahaan Khonera Pass, waxaana iskale bangiga caalamiga ah ee Bakistan. Waxa uuna gaarayaa 4,693 mitir, oo u dhiganta 15,397 feet, waxaana la aasaasay bishii November sanadku markuu ahaa 2016. Fayraskii ugu horreeyay caalamka ee kombiyuutarada waxaa sameeyay laba qof oo walaalo ah oo u dhashay waddanka Bakistan, oo lagu kala magacaabi jiray Basit Faruq Alfi iyo Amjad Faruq Alfi. Fayraskaas ayaa lagu magacaabi jiray Brain Virus, waxaana shaaca laga qaaday sanadku markuu ahaa 1986.
Assalaamu calaykum